soo dhawaada mar kale iyo muuqaal xiisihiisa wata. Waxaan aad u jecel lahay mar walba inaan raali gelino asxaabta ku taxan YouTube channelkeena Axmed Daawud Channel. Waan ku faraxsanahay maanta inaan idiin soo tabin doono muuqaal aad u xiiso badan inagoo ku dhex safri doona bal caasimadda Dubai ayaynu maanta joognaa. Waxaan idin daawadsiin doonaa meelaha ugu qurquruxda badan leh ee haddii aad mar uun soo gaadho magaalada Dubai ay tahay inaad booqato adiga laftaadu. meelahaas oo ay ka mid yihiin hadda magaaladii Dubai baynu dhex maraynaa suuqyadeedii mid ka mid ah. waxaan idila wadaagi doonaa insha Allah meelo kala duwan oo mid walba muuqaalkeeda iyo quruxdeeda iyo weliba dalxiiskeeda ay leedahay. waan ku faraxsanahay mar kasta waxaan idinka codsanayaa meel kasta aad joogtaan channelkan waa channelkiini waa channelkii Axmed Daawud Channel. fadlan subscribe tay noo saara fiidiyoyadan like gareeya gaarsiiya asxaabteena. waqti badan baa inaga galay tacab badan baan soo gelinay si aad idinkuna maasha Allah idinkoon weli Dubai tegin haddana aad u noqon kartaan dalxiisayaal Dubai jooga. iyo dad kale la joojiyo oo ay ku qabanayaan shaashadahaas la qabanaya markay socod ku yiraahdana waad soconaysaa markay istaag ku yiraahdana waad istaagaysaa. macnaheedu waa heerkii gawaadhida oo kale ayaa loo sameeyay dadkiina waa meel tagtay oo heer caalamiya layd baa kala hagaya dadkii iyo gawaadhidii. inaguna inaynu saas oo kala noqonaa la inaga doonaya hadii Soomaalinahay aynu la soconno. layd waka hadda socda ayuu dadkii leeyahay dadkiina waa kuwa socday. halkaana waxaad arkaysaa basaskii waaweynaa oo iyaguna heer caalamiya oo halkaa maraya. marka waa la kala tegay orodse laakiin maaha City Center Mall. halkanna waaba City Center lafteedii City Center Hargeysa oo kale ayaanu hadda soo gelaynaa. saa ula socotaanba waa tan City Center waa mall dhammaystiran oo nooc walba leh isagana nala socda insha Allah. hadda halkan aanu soo gaadhnay aanu ka adeeganayno inaan dhex maraynaa waa City Center Mall Dubai. wuxuu la mataana yahay City Centerkii Hargeysa ayuu mataana leeyahay waana halkaan isleeyahay magaca waa laga keenay City Center Mall. waxaa kaloo halkan runtii ay caan ku tahay Dubai waa bad ku wareegsan magaalada dhexdeeda oo runtii markaad yar daasho ama hawl shaqo adag aad qabato aad awoodo inaad kusoo yar mijabaxsato ama aad kusoo yar nafisto badda gudaheega adigoo heli karaya doonyo dalxiis oo aad u qurqurux badan adigoo helaya doonyo yar oo kaa tallaabiya baddan. markaa sidoo kale halkan waxaa ku yaala halka ay carabtu imaaraadku ugu talagaleen hidiya dhaqankoodii hore. waxaynu wada garanaynaa cid walba waxay leedahay dhaqan iyo soo jireen. saa darteed halkan waxaa ku kaydsan aan hadda sii gelin inaan u soconno dhammaan carabtu wixii ay dhaqan u lahayd ee hore oo dhan awoowayaashooda ay kasoo gaadheen ayaa lagu kaydiyaa. isla markaana lacag qaali ayaa lagu kala gataa oo waa laga gadan karaa haddii aad waxyaabo qadiimi halkan keento. halkan sidoo kale waa suuqyo kamid ah suuqyada Dubai ee lagu iibiyo markaa moobilada iyo alaabaha elektrooniga oo iyaguna aad ugu socda. waxaynu halkan ka geli doonaa insha Allah suuqii dahabka suuqa dahabkii ugu weynaa Dubai. nala daawada insha Allah kusoo dhawaada Dubai Market Gold suuqii Dubai ee dahabka ayaynu halkan ka gelaynaa insha Allah. daawasho wacan weliba waxaynu gelaynaa meel aad u qurux badan. waxaan idin leenahay ku dakeeya oo ku dalxiisa isla markaana idinkoon iman haddana kasii boogta Dubai iyo siday u eg tahay. waad mahadsantihiin daawasho wacan.
ayaan soo gaadhnay burj khalifa ayaan hadda joognaa gudaha ayaynu u geli doonaa insha Allah waanan daawadsiin doonaa muuqaalkeeda oo dhammaystiran bal siduu u egyahay Dubai Mall iyo weliba burj khalifa quruxdiisa nala socda mar kasta iyo meel kasta ku taxnaada Axmed Daawud channel ballanteenu waa burj khalifa ballanteenu waa Dubai Mall hadda ayaan gudaha u soo galay mallkii burj khalifa Dubai Mall kani waa mid ka mid ah moolalka ugu casrisan dunida gaar ahaan Asia iyo Africa. Mallkan waa Dubai Mall. Waa mall lagu qalabeeyay qurux, lagu qalabeeyay carfi iyo udgoon, lagu qalabeeyay si heer sare injineeradii dhisay ay uga shaqeeyeen isla markaana biyo iyo sidoo kale cunto kasto aad u baahatana aad ka heli karto. Mallkan wuxuu kulansaday dhaqamadii kala duwanaaye Asiaanka iyo dhaqamadii kala duwanaaye Afrikaanka intaba waa laga helayaa. Qalabkii Afrikaanku ay gadanayeen, qalabkii sidoo kale Asiaanku ay u baahnaayeen iyo guud ahaanba cuntooyinkii kala duwanaa, maqaayado kala duwan baa sidoo ku yaala ama maqaaxiyo kala duwan. Sidoo kale mallkan wuxuu kulansaday dalxiisayaal caalamiya oo meel kasta daafaha caalamka iskaga yimid oo anagu aanu kamid ahayn. waxaanad arki karaysaan bulshada joogta. dabcan waxa kaloo cajiib ahayd qaabkay biyuhu soo dhacayaan ama hawada looga soo daadinayo biyaha oo iyada lafteedana dadku runtii ay u riyaaqeen, aadna iskugu sawirayeen, aadna runtii ay ugu damaashaadayeen. waa meel markaa runtii aad soo gasho aad u bogeyso isla markaana aad jeclaanayso inaad muuqaalo sawiro xasuus iskaga reebto, sidoo kale aad fiidiyo ka kooban aad iska duubto ama dadka ka duubto. runtii waxaana loo socdaa dadku nooc walba way leeyihiin, wadan walbana waa ka yimaadeen. marka hadda kusoo dhawaada mallkii ugu weynaa Dubai oo loo yaqaano Dubai Mall oo aynu halkaa kaga sii gudageli doono insha Allah. waxyaabaha kale ku kaydsan oo aynu wada eegi doono. dadka ila socda ama akhyaarta ila socoto iyaguna ku damaashaadaya halkan sawiro qurux badanna ku galaya, sidoo kale xasuus iskaga reebaya maama safka iyo guud ahaanba tiimamkii. halkan oo kale waa dhaqan Asian ama dhaqan Carab weeyaan oo runtii sawiraha lagu galaa, cuntooyin baa lagu cunaa, sidoo kale Asiaanka aad u xiiseeya. halkan iyaguna waa sidoo kale supermarketyadii waaweynaa, qaybta electroniga, qaybihii cuntada, dhammaan waa ku wada yaalaan. wax kastoo aad uga baahato oo aad Dubai ka raadin lahayd halkan lafteeda waa laga helayaa. waa mall runtii cajiiba oo kulansaday qurux iyo qiimo iyo weliba dadyow kala duwan oo usoo daawasho tagay isla markaana iskaga reebaya sawir xasuus ay iskaga qaadayaan halkan. anaguna aanu qayb ka ahayn daawasho wanaagsan. Dubai Mall waxaynu uga sii gudbi doonaa burj khalifa iyo weliba inaynu iyadana isku soo sawirno, bal dadka joogana aynu soo aragno waxyaabaha dheeraadka ay la tahay aynu iyadana soo eegno, maadaama burj khalifa aynu garanayno inuu yahay dabaq aad u dheer, aad looga shaqeeyay isla markaana madaxtooyada Imaaraadkuba ay ku dhex taalo. bal aynu wada tagno burj khalifa aynu ka dhamaano mallka insha Allah.
Burj Khalifa wuxuu leeyahay goob runtii barxad weyn oo runtii aad u ballaaran oo ay ku kaydsan yihiin ama ay ku xireysan yihiin gawaari aad u fara badan moodaladii weliba ugu dambeeyay sida Lamborghini iyo weliba gawaaridii kale qaaliga ahayd. sidoo kale waxa uu leeyahay goob iyada lafteeda waterfall oo biyaha kor inta loo qaado dhulka lagu soo daayo oo runtii iyaduna aad u qurux badan. nasiib daro maalintaas suuragal noomay noqon in biyaha laga shaqaysiiyo, laakiin maasha Allah Burj Khalifa waa meel aad u qurux badan, barxad weyn leh, dadkoo dhan isugu yimaadaan, dalxiis qurux badan lagu wada qaato, lagu damaashaado oo aad u cajiiba weeye. waa meel aad u dheer, dabaq ahaan haddii aad fuusho ama aad korto runtii aad la yaabayso, marka qaar ka cabsanaysaba dhulka markaad hoos soo eegto dheerar wuxuu ka qabo. waxaan idin leenahay ku damaashaada videogan, waxaan idin leenahay daawasho wanaagsan. waad mahadsantihiin. ku xidhnaada Axmed Daawud channel. ballanteenu waa inaynu idiin soo gudbino muuqaalo aad u xiiso badan oo wadankii gudihiisa iyo dibaddiisaba. ballanteenu waa isbedel iyo dadaal, isma dhaafna insha Allah.